maanta waxaan halkaan u fadhinaa abaalmarin aan idinku abaalmarin waxa weeye dhalinyaro xirfada baratay qalab ay ku shaqaystaan. waa xirfadley daayira kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho bartay qaybaha kala duwan ee farsamada gacanta. waxaa la guddoonsiinayaa agab ay ku shaqaystaan si ay u maareeyaan noloshooda. halkaan Waybir baa la yiraahdaa ku soo dhawaada Waybir waxa weeye waa urur dhalinyaro ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada. xaruntan waxaa la yiraahdaa Tilmaame oo mid ka mid ah xarumaha iyaga ku soo dhawaada xarunta Tilmaame waa Youth Friendly Center inaan waxa weeye sare u qaadno shaqo abuurka dhalinyarada iyo sidoo kale aan hoos u dhigno shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed waa mid ka mid ah ahdaafteeda koowaad ama kan ugu weynba oo aan maanta halkaan ugu fadhino. dalada Waybir oo dhaqdhaqaaqda arrimaha horumarinta dhalinyarada ayaa 31 qof oo si furan ugu tartamay ku guuleysiga qalabkan ku wareejisay munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta Waybir ee caasimadda Garowe. maanta halkaan waxaa fadhiya dad bartay 7 xirfadood oo kala duwan oo ay ka mid yihiin xirfadda cilaan saarka iyo make upka oo isa saaran cunto karinta korontada dayactirka moobilada solarka furniture-ka iyo makaanikada. systemka markii hore waxaan ku xulanay waxay ahayd si furan baan waxaan ugu xayeysiinay baraheena bulshada kadibna dhalinyaradu si furan bay u soo codsadeen si furanna waa loo xushay oo mataqaanaa transparency way ayaa loo xushay iyadoo markaa qof walba uu mataqaanaa ahaa qof xirfadan soo bartay shahaadana ka haysta. mashruuca shaqagelinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee Sooyab ayaa fuliyay barnaamijkan oo ka socda meelo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah waxaana qorshuhu yahay yareynta shaqo la'aanta daayirta Soomaaliyeed. waa mashruuc hadda ka socda Soomaaliya oo dhan goboleedeeda soo centerka Puntland Jubaland ilaa Somaliland. mashruucu wuxuu focus ka saarayaa 2 qaybood. qayb waxa weeye dadka in tababar la siiyo dadka dhalinyarada ah ee soo bartay xirfadaha kala duwan ama jaamacadda ka soo baxay ama college-yada dhigta in loo sameeyo tababar la xiriira sidii maaragtay ethics-ka shaqada xalaal la xiriira ethics-ka shaqada waxa laga caawinayaa sidoo kale CV inay sameystaan iyo tababar la xiriira sidii u manage gareyn lahaayeen teamkooda. tababaradaas markay qaataan waxa loo sameynayaa wax la yiraahdo job placement. qofkaas ardaygaas ama qofka xirfadda leh oo dhalinyarada ah waxa la geenayaa goob uu ka shaqeeyo. qaybta kale ee mashruucu wuxuu focus ka saarayaa waxa la yiraahdo toolkit freelancers inaan soo saarno dhalinyaro si iskooda iyagu u shaqeysta in lagu taageero qalab in la siiyo toolkit ah oo startup kit ah oo ku bilaaban karo xirfadda uu leeyahay taasoo u sahlaysa inuu noloshiisa iyo midda qoyskiisaba ku maareeyo. ujeedka guud ee mashruucan waxa weeye waa in ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee xirfadlayaasha ay helaan fursad shaqo. in qofka la siiyo qalab iyo in xirfadiisa uu ku shaqo tago oo company uu kaga shaqeynayo la geeyo. mashruucu waxa la rabaa in looga faa'iideeyo dhalinyaro gaaraysa 10,000 oo dhalinyaro ah 10,000 oo dhalinyaro ah ayaa la rabaa inay ka faa'iideystaan mashruucan Sooyab. 6,000 iyo 400 waxa loogu talagalay in la shaqo geeyo in tababar la siiyo kadibna shaqo la geeyo. 3,000 iyo 600na waxa loogu talagalay inay noqdaan dad freelancers ah la siiyo agab startup kit ah ay ku shaqeystaan. mashruucu 2 qaybood ayuu focus ka saarayaa. dhalinyarada hadda waxa kale yiraahdo qalabkan la siinayo waxay ka kooban yihiin 31 qof oo u kala qaybsan 7 xirfadood. hantilaha ku hubeysan aqoonta iyo xirfadda gacan maalku waa dhif Soomaalida dhexdeeda walow ay muuqdaan dadaalo dawlad iyo shacab leh si loo fududeeyo adeegsiga xirfadaha lagu hodmo ee kuwan oo kala ah. badanaa waxaan aad wax u support gareynaa ardada ka hadhay waxbarashada sida gabdhaha waxaanu siinaa waxbarasho academic host base computerkii luuqadihii yaryaraa waxaan kaloo qabanaa waxaanu leenahay xaruntu waxay leedahay library oo ardada jaamacadaha ardada high schoolka leh internet free goobi wax ku baran lahaayeen waxaan kaloo on fursado badan baa ka jira marar waxa jira aan u sameynaa ardadaha fursado maalgelin oo ka mid tahay barnaamijkan oo kale barnaamij kale oo la dhaho dalbile oo sanadkii kasta aan 3 gobol oo kale uga faa'iideyno.
fursadaha shaqogal oo yar guud ahaan dalkeena ayaa dhalinyarada ka dhigay kuwo aan door weyn ku lahayn howlaha shaqo ee waddankeena waxaase socda dadaalo lagu doonayo in da'yartu ay door qaataan ka wasaarad ahaan annagu markasta waxaan u heelanahay wasaaradda dhalinyarada waxaan dhalinyarada markasta waxaan u heelanahay inaanu dhalinyarada shaqo abuur la sameeyno hadda darhaad waxaa qalin jabiyey 30 gabdhood oo bartay managementiga 5 gabdhood meeshaan ku shaqaalaysiinay oo waxaan kala siinay 5 hayadood baan kala geynay markasta waxaan shantii u sareysay imtixaanka u sareysay baan qaadanay markasta waxaan rajeynaa anagu ka shaqeynaa kan wasaarad ahaan ama ka wax ahaan inaan dhalinyarada dhiirigelino supervision ku sameeyno waxay barteen waxay shaqaystaan dabcan waxaan rajeynayaa wax badan baa soo socda insha Allah taala cida barnaamijkan fangareyso UNICEF dareen cida mashruuca qaadato iyo YBIR iyo dhammaan idinkoo dhacan kamina dhaliyay waqtigiina qaaliga aad baa idinku mahad celinaya